wararka laga soo gaaraya maamul goboleedka Soomaaliyeed Puntland maamulka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen xoolo ay ganacsato reer Puntland ah ay u dhoofiyeen wadankaasi Sacuudi Arabiya xoolahan ayaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya warbixintaasi waxa ay eegaysaa wariyaheena Nashaad Aadan Daahir Sacuudiga ayaa dib soo celiyay xoolo laga dhoofiyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaana xoolahaasi lahaa ganacsato ka soo jeeda deegaanka Puntland markabka ayaa waxa uu siday xoolo gaaraya 8,000 neef oo ari ah iyadoo arintan ay war ka soo saartay Puntland wasiirka xanaanada xoolaha maamulka Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay arigan inuu ahaa kuwii loogu talagalay Ciidul Adha wuxuuna sheegay sida ay maqleen xoolahan in laga helay cudur sidaas darteed loo soo waxaana markabkani biri uu ku soo xiranaya tikada magaalada Boosaaso waa markab la soo celiyay wali runtii ma imaanin maalin dhawaad ayaan ku rarnay xoolahaas oo dhamaantood ah ari waxa la soo sheegayaa in laga helay cudur anagu waxaan aaminsanahay inuu jirin warkaasi biri ayayna soo gaarayaan ayuu yiri wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka Puntland dawladda Sacuudiga wali kama aysan hadlin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dib u soo celinta xoolaha nool ee ganacsatada Soomaaliyeed ay leeyihiin Nashaad Aadan Daahir Kalsan TV Muqdisho